sheekadani waxay ku bilaabanaysaa nin lagu magacaabo Clint oo wacaya xaaskiisa quruxda badan oo lagu magacaabo Jonah isagoo jooga xafiiskiisa goob dhismo ah. Wuxuu u sheegayaa in uu xiisi doono maadaama ay shaqada u baxaysa inta lagu guda jiro maalmaha usbuuca. Dhanka kale, Jonah uma muuqata mid happy ku ah ninkeeda. Wicitaanka kadib, magaalada ayay soo aadaysaa si ay u soo qaadato warqadda boostada. Halka ayga ninkeeda oo ay ugu magacdireen Duke uu ka ciyayo dhabarka dambe ee guriga. dib haddaan u milicsana Clint waxaa ku soo booqanaya xafiiskiisa ruux doonaya inuu heshiis ganacsi la sameeyo isaga. Shaqada markii uu ka soo rawaxay galabtii, Clint wuxuu kala kulmaya waddada isagoo kaxaynaya gaarigiisa nin lagu magacaabo Sheriff Sam ayaa ka codsanaya Clint haddii uu awoodo inuu raaco si uu la soo kalluumaysto isaga inta lagu guda jiro maalmaha u dambeeya usbuuca, maadaama Jonah nafteeda ay doonayso inay nasato maalmaha Sabtida iyo Axadda. Clint wuu aqbalayaa codsiga Sam. Wuxuu imaanayaa gurigiisa wuxuuna la kulmayaa xaaskiisa Jonah. Jonahna weli happy kuma aha isaga, xitaa cunto uma diyaarinayso isaga. Waxayna u sheegaysaa inay ka dahsan tahay ballantii dhakhtarka. Way yara sheekaysanayaan xoogaa. Wuxuu uga sheekeynayaa iyada ruux doonayay inuu kula wareego ganacsigiisa $1 milyan, balse wuu diiday. Arrintan ayaa ka caraysiinaysa Jonah. Waxayna u sheegaysaa Clint inay doonayso inay ku noolaato caasimadda beddelkii uu noolaan lahayd sidii jiirgood ku jira. Tani waxay keenaysaa muran dhex mara iyaga. Sidaas darteed, Clint wuxuu xasuusinayaa Jonah inuu guriga dhisay isaga. dulqaad ayuu muujinayaa. Jacaylka uu u qabo Jonahna waa mid ka xoog badan caradiisa. Si kastaba ha ahaatee, Jonah waxay rabtaa lacagta ka hor intaysan ku laaban New York. Jonah waxay ka baxday guriga iyadoo caraysan halka Clint uu isla hadlayo. dhammaadka usbuucaas, Clint wuxuu aadayaa kalluumaysi isagoo raacaya saaxiibkii Sam ayaa weydiinaya Clint xaaladda Jonah. Clintna wuxuu u sheegayaa Sam in Jonah ay jeceshahay nolosha caasimadda oo aysan ku qanacsanayn nolosha tuulada. Dhanka kale, waxaa soo baxday in Jonah ay khiyaamaynaysa Clint oo xiriir hoose uu kala dhexeeyo dhakhtar lagu magacaabo Cortland. wuxuu u sheegayaa iyada inuu leeyahay rug caafimaad oo aad u weyn iyo inuu ka shaqaynayo in sida ugu dhaqsaha badan ay caasimadda ugu laabtaan, halkaas ay ku noolaan doonaan nolosha ugu wacan. Laakiin waa in meesha laga saaraa Clint. Jonah waxay soo jeedinaysaa in Clint ay ka dalbato furitaan, laakiin Cortland wuxuu leeyahay may, waa in gebi ahaanba laga takhalusaa Clint. wuxuu soo bixiyay dhalinyaro oo ay ku jirta sun uu ka soo saaray ugxanta mid ka mida kalluunkiisa. wuxuuna u sheegay in keliya looga baahan yahay inay cuntada ugu darto suntan Clint waxay ka dhigi doontaa sida camal inuu u geeriyooday wadnaha u istaagay. Jonah waxaa dhib ku ahaa inay qaadato go'aanka arrintaas ay ku fulin lahayd, laakiin marka ugu dambayn ay ku dhowdahay inay ka tagto magaalada, Cortland ayaa ugu riidaya suntan boorsadeeda, wuxuuna u sheegayaa inay mar kale dib uga fikirto qorshaha. Si kastaba ha ahaatee, Jonah way aqbalaysaa sunta. Guriga markii ay tagtay iyadoo raadinaysa sunta, ayay ka soo dhacaysaa boorsadeeda, kadibna qayb ayaa ka daadanaysa. Clint guriga ayuu ku soo laabanayaa xilli dambe maalintaas si uu ula kulmo Jonah. wuxuu ka soo duldhacayaa Jonah oo casho diyaarinayso. Jonah waxay ku daraysaa sunta mid ka mida 2 galaas oo sharaab ah, laakiin markii uu Clint sikadiisa jikada ugu soo galay, way naxaysaa. waxaana ka dhacaya dhaladii ay sunta ku jirtay, laakiin Clint ma dareemaya dhalada ay sunta ku jirto. Clint wuxuu soo qaadayaa 2 galaas ee sharaabka ah, laakiin mid ayaa sun leh. qolka nasiinada ayuuna la soo aadayaa, kadibna miiska ayuu dul saarayaa. markii ay bilaabeen inay cunteeyaan, Jonah waxay ka cabsanaysaa inay qaadato mid ka mida 2 galaas, waayo ma garanaysa midka ay sunta ku jirto. Clint ayaa markaa wuxuu isku dayayaa inuu siiyo iyada rooti, laakiin been ayay sheegaysaa, waxayna leedahay waxba ma cuni karo caawa. markaa kadib ayuu Clint kabanayaa sharaabkii ku jiray mid ka mida 2 galaas, kadibna wuxuu bilaabayaa inuu gariiro. tan ayaa markaa waxay ku qancinaysaa Jonah inuu Clint ka cabay galaaskii ay sunta ku jirtay. isagoo la daala dhacaya xanuun ayuu isku dayayaa inuu qabsado Jonah, laakiin Jonah waxay u sheegaysaa inuu noloshiisa un soo afjaro. Clint ma sii halgami karo. ugu dambaynna dhulka ayuu ku dhacayaa. Jonah ayaa isla markiiba wacaysa Cortland, waxayna u sheegaysaa inay hawshii fulisay. isagana wuxuu ballan qaadayaa inuu halkaasi ka sii wadi doono mishanka. habeenkaas, Sam wuxuu soo gaarayaa nin lagu magacaabo Connor iyo Cortland, waxayna doonayaan inay meydka soo saaraan, isla markaana waxay ka wada hadlayaan arrimaha duugta. halka Jonah ay goobjoog tahay iyadoo iska dhigayso inay barooranayso. Sam wuxuu u sheegayaa Clint in baaritaan lagu sameeyo meydka, waayo wuxuu ka shakisan yahay qaabka uu dhintay Clint. yacni dhowr maalmood ka hor waxay isla joogeen xeebta, wax dhibaana kama muuqan Clint. Cortland wuxuu u sheegayaa Sam inaan loo baahnayn wax baaritaan ah, waxayna indhihiisu qabanayaan dhaladii sunta oo taala sagxadda, meel waxay run u jirta 2 lugood ee Sam. Cortland wuu argagaxayaa, wuxuuna u baaqayaa Jonah, laakiin waxa kaliya ay samayn karaan waa inay isdejiyaan ilaa inta uu ka baxaya Sam, ka hor inta uusan arkin dhalada ay sunta ku jirto. markii uu Sam tagana, meydka Clint talaagada ayay gelinayaan,
habeenkaas waxaana la tusayaa in laga yaabo in weli Clint uu nool yahay, waayo Clint dhanka loo dhigay madaxiisa ma ahee dhanka kale ayuu u gedisan yahay qaboojiyaha dhexdiisa. subaxdii dambe waxaa jirka meydka qaadaya kooxda loogu talagalay inay meydka xafidaan oo ku hayaan qolka mochariga ilaa inta laga aasayo. markaas ayaa waxaa soo wacaya Connor mise Scotland, wuxuuna u sheegayaa in Jonah ay codsanayso in meydka si degdeg ah loo aaso oo ayna u baahnayn in qarash badan ay gasho. dhanka kale kooxda gacanta ku haysa meydka oo ku dhow inay ku duraan jirka Clint irbadda ka ilaalinaysa inuu meydka isbedelo ayaa waxa uu imaanaya Connor, wuxuuna ku wargelinayaa inay wax kasta raqiisiyaan. tani waxay ka dhigan tahay inay isticmaalaan naxash old fashion ah. maalinta aaska, Duke oo ah eyga Clint ma doonayo inuu arko Jonah, wuuna ku ciyayaa markasta oo ay u soo dhawaata naxashka. waxay iska dhigaysaa inay u barooranayso geerida Clint. gelinkii dambe maalintaas waxaana la tusaya Jonah oo beeshin kula dhex jirta Scotland oo labaduba ay ku wada qoslayaan sida ay uga takhalusan Clint. dhanka kale Duke si aan xakamayn lahayn ayuu u qaylinayaa xilli roob aad u weyn uu da'ayo. Jonah dulqaadka ayaa ka dhammaanaya markii uu eega ciga iyo qaylada ka badiyo, waxayna soo qaadanaysaa qori, halka Scotland uu iyada si degan u dabaraacayo. markii ay qolka yar ee eega ku dhowdahay ayaa xabad ku dhufanaysaa qufulka si ay u furta albaabka kadibna u toogata eega, laakiin wuu ka baxsanayaa. kadibna Scotland ayaa wuxuu si kaftan ah ugu tilmaamayaa iyada inay tahay qof waalan xilli ay wada qoslayaan. eyga wuxuu dib ugu soo laabanayaa xabaalaha, halkaasoo milkiilihiisa uu ku duugan yahay ciidana uu ka hooseeyo. roobka aadka u weyn wuxuu sababayaa in ciidda ay jilacdo, kadibna biyaha ay si tartiib ah u galaan naxashka, taasoo soo kicinaysa Clint. wuu isku naxayaa wuxuuna noqonayaa sida qof camalkooma ka soo baxay, laakiin naxashka jilicsan ayaa wuxuu bilaabayaa inuu kala go'o, taasoo u ogolaanaysa inuu feer ku dhufto kadibna sidaas bannaanka ugu soo baxo. Duke wuxuu daawanayaa waxaanoo dhan markii ay dhacayaan, cabsi ayaana gelaysa marka hore, laakiin meel fog ayuu istaagayaa isaga oo ciyaya oo qaylinaya, halka milkiilihiisa uu ka soo baxayo qabriga. dabadeed Duke wuxuu u tagayaa Clint ka hor inta Clint uusan soo aadan gurigiisa isagoo gacmihiisa ay dhaawac ka muuqdaan. markuu gurigiisa gaaray ayuu arkayaa in albaabka guriga uu xiran yahay, markaas ayuu aadayaa dhanka dariishadda jikada, wuxuuna ka arkayaa dariishadda Jonah oo shuminaysa Scotland. Jonah waxay aragtay qof taagan dariishadda, laakiin isla markiiba wuu ka qarsoomayaa muuqaalka. waxay u tilmaamaysaa Scotland dhanka dariishadda jikada inay wax soo istaageen, kadibna wuu jeegaraynayaa isagana waxba ma arkayo, wuxuuna u sheegayaa iyada inuu ka shakisan yahay eygii Duke ahaa oo bannaanka wareeganaya. markaas ayay dhoola cadaynaysaa, laakiin weli maskaxdeeda walwal ayaa ka buuxa. habeenkaas Scotland shaqa ayuu aadayaa. Clint wuxuu jabsanayaa qaybta hoose ee basementiga guriga, halkaas oo kaga gabanaya roobka iyo dhaxanta. maalintii xigtay Jonah ayaa la kulmaysa qareenka Clint si ay wax uga ogaato hantida Clint oo ay doonaysa inay dhaxasho. waxay kaloo doonaysaa inay ku iibiso ganacsiga Clint $1 milyan, laakiin shardi ah inay tahay wax lagu bixinayo lacag caddaan ah 48 saacadood gudahood. dhanka kale Clint wuxuu ka soo kacayaa qaybta hoose ee basementiga, wuxuuna soo fuulayaa jaranjarada. ugu dambayntiina jikada ayuu imaanayaa, wuxuu cabbayaa oo cunayaa cuntada iyo sharaabka ku jira talaagada inta ay Jonah oo guriga ka baxday dib ugu soo laaban. kadibna wuxuu ku laabanayaa qaybta hoose ee basementiga si uu u soo qaato qori, laakiin dhaawacyada uu qabo dartood waxaa ka daadanaya rasaasta, waxaana dhib ku ah inuu xitaa hal xabo dhulka ka soo qaado. markii uu ku guulaystay inuu rasaasta ku cabbayo qoriga, wuxuu aadayaa dhanka jaranjarada si uu u shuud garaya Jonah. dhinaca kale waxaana la tusayaa Jonah oo soo gelaysa jikada, waxayna arkaysaa talaagada oo laga tegay iyadoo furan. Clint ayada ayuu daba socdaa wuxuuna doonayaa inuu toogto, laakiin wuu ku guuldarraysanayaa. Jonah waxay aadaysaa dhanka albaabka guriga, waxayna arkaysaa Sam oo booqasho ugu yimid iyada. way soo dhaweynaysaa waxayna siinaysaa cabitaan. inta uu wax cabaya wuxuu u sheegayaa inuu maqlay inay iibinayso ganacsiga iyo guriga. Jonah waxay isku dayaysaa inay qariso fadeexadeeda, waxayna u sheegaysaa Sam inaysan ganacsi waxba kala socon, gurigana aysan meel uga socon. wax yarun ka hor intuusan bixin Sam, Scotland ayaa imaanaya. Mr. Scotland wuxuu isku dayayaa inuu qariyo sababta uu imaaday guriga, wuxuuna iska dhigayaa inuu check-up ku samaynayo Jonah oo bukaan socda. Scotland iyo Jonah gudaha ayay soo galayaan isla markii uu ka dhaqaaqa Sam. Jonah waxay u sheegaysaa Scotland in si degdeg ah ay magaalada uga baxaan, waayo waxay ka baqaysaa in Sam uu baaritaan ku hayo iyaga. si kastaba ahaatee Scotland wuxuu u sheegayaa iyada inay haystaan ilaa berri si ay u helaan lacagta, kadibna ay ka bixi doonaan magaalada. dhanka kale
Clint wuxuu ogaanayaa in hal xabo rasaas ay ugu jirto qoriga. Marka uu laabanayaa si uu rasaas u soo gashto, uuna soo gabagabeeyay nolosha Cortland iyo Jonah. Markuu soo laabtay Clint, wuxuu maqlayaa Cortland iyo Jonah oo ka wada hadlaya sida ay uurka ugu lahayd Clint. Laakiin Cortland ugu caawiyay iyada habka ilma soo saaridda si ayna ula sii noolaan isaga. Clint inuu maqlo ereyada noocaana waxay ku noqonaysaa dembil dab ah. Beddelkeedana wuxuu ka soo saarayaa xabadda qoriga, isagoo dhahaya kuwan inaad xabad ku disho waa ciqaab aad u fudud. Habeenkaas Clint wuxuu sugayaa Jonah inta ay ka seexanayso ka hor intuusan musqusha la aadin 2 maqas. Wuxuu dhaqayaa oo nadiifinayaa dhaawacyada jirkiisa, wuxuuna iska beddelayaa dharka ka hor inta uusan meesha ka bixin. subaxdii dambe waxaa guriga imanaya macaamiisha doonayay inay la wareegaan hantida Clint, iyagoo wata shandad lacag ah. Marka ay nimankaas tagaan kadib, Jonah farxad ayay la kala badbadanaysaa, waxayna diyaar u tahay inay magaalada ka baxaan isla markii uu guriga ku soo laabto Cortland. Dhanka kale, Sam wuxuu imaanayaa qubuuraha wuxuuna la kulmayaa Connor iyo maamulaha qubuuraha, wuxuuna weydiinayaa sababta Clint qabrigiisa uu u maran yahay. Maamulaha qubuuraha ayaa ku andacoonaya inuu arkay iyadoo sidaas ah. Connor wuxuu ka cabsanayaa arrintani inay fadaxad iyo magac xumo u keento. Wuxuu aaminsan yahay inuu qof qoday qabriga oo Clint uu ka soo saaray, laakiin wuxuu rajaynayaa in kiiska la qariyo. Sam ayaa markaasi codsanaya inuu naxashka gurigiisa u qaato, arrintana la qariyo ilaa inta uu baaritaan ka samaynayo. Mar kale waxaana la tusayaa Jonah oo ku faraxsan hantida cusub oo ay heshay. Waxay soo aadaysaa musqusha si ay u soo qubaysato, laakiin waxay arkaysaa musqusha oo qasan. Si degdeg ah ayay u soo xiraysaa albaabka musqusha, waxaana ogaanaysaa inaanay keligeed ahayn. Isla markiiba waxay wacaysaa Cortland. Si kastaba ha ahaatee, Cortland telefoonka ma qabanayo. Markaa waxay u duubaysaa cod ay ugu sheegaysay inuu guriga si degdeg ah u imaado, ruuxuna uu kula dhex jiro guriga iyada. Kadibna waxay u soconaysaa xagga qaybta hoose ee basementiga si ay qori u soo qaadato. Laakiin waxaa ka hor imaanaya oo la dagaalamayo eygii Duke ahaa. Si tartiib ah ayay u gelaysaa basementiga. Kadibna waxay isku dayaysaa inay toogato Duke, laakiin Clint ayaa ku soo baxaya iyada, isagoo xiran maskarada alxanka. Naxdin darteed, qoriga ayaa ka dhacaya jaranjarada ayayna ku duldhacaysaa. Markaa kadib, Clint ayaa ku soo xiraya basementiga xilli ay dhulka taalo oo ay miyir la'aan tahay. Dhanka kale, waxaana la tusaya Cortland oo ku dhow inuu shaqada ka soo rawaxo. Wuxuu soo qabanayaa mid ka mid ah kalluunkiisa, wuxuuna ka soo saarayaa sun ka hor inta uusan dhegaysan codka loo soo duubay. Cortland guriga ayuu imaanayaa wuxuuna soo baxsanayaa saliigaha sunta ah, wuxuuna u wacayaa Jonah, laakiin wax u jawaabaya ma laha. Guriga ayuu ka dhex raadinayaa iyada, wuxuuna arkayaa shantadii lacagta ahayd, laakiin Jonah weli ma shanqarayso. Waxoogaa kadib, Jonah miirka ayaa ku soo laabanaya, waxayna maqlaysaa Cortland oo u wacayo. Waxay moodaysaa qofka ka nexeeya inuu Cortland yahay, wayna isqarinaysaa. Clint markaa wuxuu furayaa albaabka basementiga, laakiin Cortland markii uu soo galo basementiga, Jonah ayaa dhurbaaxa ka kicinaysa. Saliingihii uu gacanta ku sitay ayaana ka dhacaya oo ku garaangiraya meel koona ah. Jonah saliingaha ayay ku ordaysaa, laakiin Clint ayaa soo muuqanaya. Albaabka ayuuna ku xirayaa labaduba. Hadda waxay xaqiiqsatay inuu qof saddexaad jiro, waxayna ka shalaynaysaa dhurbaaxada ay ku dhufatay Cortland. Way raali gelinaysaa, waxayna u sheegaysaa inay ku khaladay qofkii soo weeraray iyada. Dabcan iyadu ma garanaysa waxa uu yahay saliingaha uu sito Cortland. Intaa kadib, Cortland wuxuu isaga dhigayaa Jonah inaanay jeclayn isaga, wuxuuna ku fikirayaa inuu dhibaateeyo iyada. Markaas ayuu soo bandhigayaa inuu gubo lacagta oo dhan si uu u caddeeyo jaceylka uu u qaba iyada. Arrintaas ayay ku qancisaa Jonah. Mar kale ayayna raaligelinaysaa Cortland, waxayna u sheegaysaa inay jeceshahay. Markay waxaan oo dhan dhacayaan, waxay maqlayaan shanqarta maacuunta ee Clint oo isticmaalaya guriga gudihiisa. Cortland wuxuu u sheegayaa iyada inay ka baxaan marka hore meesha, wuxuuna isku dayayaa inuu toogto albaabka si ay u galaan guriga oo ay uga soo baxaan basementiga. Laakiin wuxuu ogaanayaa in rasaasta oo dhan uu kharibay Clint, oo xabadda qoriga ay tahay xashwad iyo hawo keliya. Kadib wuxuu isku dayayaa inuu jabsado dariishadda, wayna u suurtagelaysaa. Laakiin markii uu isku dayo inuu dariishadda ka galo, eygii Duke ahaa ayaa madaxa ka soo taaganaya dariishadda, isagoo oo weliba qaylinaya, taasoo ku qasbaysa labaduba inay ku xayirmaan basementiga. Dabaqa sare, Clint wuxuu ku mashquulsan yahay dib u hagaajinta gurigiisa, isagoo weliba caraysan oo gidaarka jeexjeexaya. Xitaa wuxuu mishaar ku jeexjeexaya sawirada arooskiisa isaga iyo Jonah.
maalinta xigta Cortland ayaa wuxuu u sheegaya Jonah inuu ka shakisan yahay Sam inuu ku sameynayo iyaga dhibaatadan si uu ula qaybsado hantida uu ka dhintay Clint. Jonah ayaa arkaysa silingihii sunta oo dhulka yaala. Sunta ayayna soo qaadaysaa iyada oo rabta inay ku darto Cortland, laakiin way ku guuldarraysanaysaa waayo ugu dambeyn waxay ogaanaysaa in jacayl been ah uu la jilayay iyada, aakhirkiina uu doonayay inuu sunta ku daro iyada, sidaasina uu hantida ku qaato. Cortland sunta ayuu gacanta ku dhigaya wuxuuna damcayaa inuu ku daro iyada oo nolosha oo u dhameeyo, laakiin albaabka basementiga ayaa si lama filaan ah u furmaya. Beddelkii uu sunta ku duri lahaa iyadana wuxuu go'aansanayaa inuu ku mudo cadowga albaabka ka soo muuqday. Kadib Cortland ayaa soo qaadanaya shandadii lacagta ahayd, halka Jonah ay soo dabaraacaysa isaga. Marka ay ka soo baxaan qaybta hoose ee basementiga, waxay arkayaan guriga oo dhan oo alwaax lagu sameeyey. Waxay dhex soconayaan luqluqyo badan oo mugdi ah, laakiin ma garanayaan meel ay ka bilaabmaan iyo meel ay ku dhammaadaan. ugu dambeyntii way kala lumayaan. Cortlandna wuxuu la kulmayaa marka hore mulkiilaha guriga waa Mr. Clint. Wuxuu isku dayayaa inuu khiyaameeyo Clint isagoo iska dhigaya inuu la heshiinayo, laakiin wuxuu rabaa inuu sunta ku duro. Si kastaba ha ahaatee, markii uu ogaaday inuu qofkan Clint yahay, wuu miyir daboolmayaa. Clint wuxuu raadinayaa Jonah, wuxuu ku soo eriyanayaa god yar oo ku hogaaminaya alwaax naxash ah. Markay codsatay inuu badbaadiyo, wuxuu xasuusinayaa sidii ay u dhihi jirtay inay dareemayso sidii jiir god ku jira. Markaa kadib Cortland ayuu ku riixayaa naxashka alwaaxa ah, wuuna ku xirayaa. Dabadeedna guriga ayuu gubayaa, gaarigiisa ayuuna ka kaxaysanayaa meesha iyagoo ku wadi jira naxashkii alwaaxa ahaa. Dhanka kale, kadib Sam markii uu baaritaan ku sameeyey naxashkii Clint lagu aasay, wuxuu ogaanayaa in Clint uu siiskiisa u baxsaday, wuxuuna soo aadayaa guriga Clint, laakiin wuxuu arkayaa guriga Clint oo gubanaya, wuxuuna u wacayaa waaxda dabdamiska. subaxa dambe wuxuu ku soo laabanayaa qabriga Clint, wuxuuna arkayaa nin taagan meesha oo badiil gacanta ku sita. Wuxuu u sheegayaa ninka inuu soo booqday qabriga saaxiibkiisa oo dhintay. Markii uu xasuusto in ninkan uu Clint yahay, Sam wuxuu ku siganayaa inuu ooyo. Ugu dambeyntiina wuxuu u sheegayaa inuu si degdeg ah magaalada uga baxo, weligiisna dib dambe uusan ugu soo laaban. Wuxuuna u ballan qaadayaa inuu ilaalin doono sirtan weligiis inta uu nool yahay. Markii uu Clint baxo, Jonah ayaa u qaylinaysa in la badbaadiyo, laakiin waxaa la yaabanayaa u soo socda si uu badbaadiyay iyada. Ma kula tahay in Jonah ay mutaysatay wixii ay heshay? Nala wadaag fikirkaada adigoo ku soo qoraya qaybta hoose ee faallada.